بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم عن داودياشنا قيمها يقدرين تلاو ميل والبعض نقد داوانا إنسان كوزو دواد برنامج كنا مقال كمانتي جول تي في طبعا قدبات هديه بها ود لو رالك النقدات كدا وان دونتان برنامج كنا وحاقيب كنا قندونا كوحا مانشستر يونايتد ريال مدريد او كدا لما يسيح عياريان كوستاس مانولاس hogaamiyihii hore ee kooxda Manchester United Jose Mourinho amaan kala duldhacay ciyaaryahan Ivan Rakitic. maxaad ka taqaanaa taariikh kooban oo inuu ku eegi doono hogaamiyaha waqtigan ee naadiga Liverpool Jurgen Klopp kaas oo ay dhici karto in markii ugu horeysay magaciisa uu ku qoro magaca Premier League. imise ciyaaryahan ayaa jirta kubadda cagta adduunka oo ka taarad iyo heesiisu qaada Sergio Ramos, Mario Balotelli iyo kuwa kale. warbixin xiiso leh ayaa soo kale intaynu ku guda jirno barnaamijkeena aad ku daawan doontaan. ciyaaryahankii hore ee kooxda Manchester United Dimitri Berbatov ayaa ka hadlay xaaladda uu waqtigan wajahayo ciyaaryahan Paul Pogba, Lionel Messi oo soo gaaray magaalada Barcelona xilli ay dhici karto inuu seego oo kulanka derby Catalonia. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena muuqaalka maanta iyo Goal TV. ومالين واحدة تاريخ ده يكون أساساً تهي دبعانا 24 بيشا سدحاد مارس سنة لبكون إيه سقالي توان كاوديار قروا داوا ديال برنامج كاسو لما يسرنا نيقو محمد عبد الله أحمد دقرأي أنا دين آخريو. عياريهن كا كوستاس مانولاس ayaa waqti xaadirkan lala xiriirinaya dagaalkiisa inuu haatan u dhaxeeyo labada kooxood ee Manchester United iyo Real Madrid xilli Zinedine Zidane uu diyaar u yahay inuu ku garaaco dhigiisa Ole Gunnar Solskjaer. هذا وربحنا مورتاس لحيرته وحينو ديارية هل كان إنه سو جيدين دون ورينا محمد داود بري. kooxda Real Madrid ayaa kula dagaalameysa dhigeeda Manchester United saxiixa difaaca heerka caalami ee dalka Greega ee kooxda AS Roma Kostas Manolas kadib markii uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaaga sida laga soo xigtay warsidaha caanka ee Talyaaniga La Gazzetta dello Sport. tababare Zinedine Zidane ayaa doonaya inuu sameeyo saxiixa magac cusub oo si wanaagsan kaga ciyaari kara qaybta dhexe. magaca ugu hadalheynta badan ayaana ah Kostas Manolas. kooxaha Real Madrid ee Manchester United ayuu xoogan ku dhexmari doona suuqa xagaaga ee soo aadan sabab la xiriira saxiixa difaacan birta ee kooxda Roma Kostas Manolas. wargeyska ayaa sheegaya in wararka xanta ee ku aadan in Rafael Varane uu ka tagay Real Madrid kadib dhamaadka kala ciyaareedkan ayaana ka dhigtay in maamulka kooxda ee suuqa ka raadiyaan saxiixa difaac cusub si ay kaga fogaadaan halis kaga iman karta haddii ay dhacdo in Rafael Varane uu ka dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabeu. labada kooxood ayaa sida laga soo xigtay wargeyska waxa ay ku qasbanaan doonaan inay bixiyaan qiimo dhan 22 milyan oo euro si ay gacanta ugu dhigaan saxiixa Kostas Manolas xilli mushaarka uu qaato kooxda Roma lagu sheegay 2.7 milyan oo euro. aad ayuu maasan yahay wariyahana Maxamed Daawud Barre. balse markaan hogaamiyihii hore ee kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa amaan kala duldhacay laacibka qadka dhexe ee qaranka dalka Croatia ee kooxda Barcelona Ivan Rakitic. warbixin amuurtaas la xiriirtay waxaa inoo diyaariyay
wariyahana Bashiir Maxamuud Maxamed. xidiga kooxda Barcelona ee xulka qaranka ee Croatia Ivan Rakitic ayaa amaanay tababare Jose Mourinho waxayna arrintan timid kadib ciyaartii la soo dhaafay El Clasico ay wada ciyaareen Real Madrid iyo Barcelona. Jose Mourinho ayaa sheegay in Ivan Rakitic uu yahay mid kamid ah xidigaha khadka dhexe ugu fiican ee adduunka isagoo tilmaamay inuu yahay ciyaaryahan ka dulansan dhanka saxaafadda. Ivan Rakitic ayaa shir jiraa'id uu ka soo muuqday ka hor kulanka caawa ay la ciyaari doonaan xulka qaranka Hungary waxa uu yiri Jose wuxuu si cad u amaanay qaab ciyaareedkii ugu dambeeyay maxaan ugu jawaab celin lahaa mahadsanid. Jose waa falanqeeyaha ugu weyn ee adduunka ma garanayo in aabahii uu i ammaan doono sida Jose oo kale waana ku faraxsanahay erayadaas ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay qaabeeyaha qadka dhexe kooxda Barcelona ee xulka qaranka ee Croatia Ivan Rakitic. markan England wariyaankii hore ee kooxda Manchester United Dimitri Berbatov ayaa ka hadlay xaaladda waqtigan uu wajahayo ciyaaryahan Paul Pogba kaasoo lala xiriirinayo dhaqaaqista kooxda boqorada cadadka Yurub ee Los Blancos. Maxamuud Saciid Maxamed Cabdullaahi ayaa qodobkan faahfaahin doona. weeriyaankii hore ee kooxda Manchester United Dimitri Berbatov ayaa aaminsan in waraysigii uu Paul Pogba kaga hadlay Real Madrid aysan ka dhignayn inuu ka tagayo garoonka Old Trafford. Pogba ayaa dhawaan sheegay kooxda Real Madrid oo gaar ahaan hogaaminayo Zinedine Zidane ay ka dhigan tahay riyada caruur kasta, laakiin Dimitri Berbatov ayaa ka dhigay hadalka Pogba mid iska caadi ah sabab la xiriira inuu ka hadlay kaliya xirfadiisa kubadda cagta balse aysan wax isbedel ka sameyn doonin mustaqbalkiisa kooxda Manchester United. Pogba waa mid kamid ah ciyaartoyda adduunka ugu fiican waxaana sidaas ku arkay kadib markii aan ka soo wada ciyaarnay kooxda Manchester United. waxaan rajeynayaa inuu sii joogi doono garoonka Old Trafford inkastoo ay soo cusboonaadeen warar kale la xiriirinayo kooxda Real Madrid. waxaan taageeri jiray kooxo badan ee kale markii aan u ciyaarayay Manchester United sababtoo ah waxaan ahaa taageero weyn ee kubadda cagta. waxaan jeclaa kooxaha sida Real Madrid, Juventus iyo Bayern Munich. sidaas darteed tani ma ahan wax laga walwalo sababtoo ah waxaan ku noolahay caalamka kubadda cagta ee ku ogolaanaya inaad sheegto waxa aad rabto. Pogba wuxuu ahaan doonaa waqti dheer ciyaaryahan ka tirsan kooxda Manchester United inkastoo ay jiraan kooxo xiiseynaya ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay wariyaankii hore ee kooxda Manchester United Dimitri Berbatov. markan magaalada Barcelona kabtanka xulka qaranka dalka Argentina iyo kooxda Barcelona Lionel Messi ayaa ka soo degay magaalada Barcelona si uu qayb uga noqdo kulan ciyaareedka derbi Catalonia walow laga dayrinayo xaaladiisa kadib dhaawac ka soo gaaray kulan ciyaareedka Venezuela iyo Argentina. Maria Adan Herlina ayaa qodobkan faahfaahin doonta. Lionel Messi ayaa isku diyaarinaya inuu ciyaaro kulanka Catalan derby ay wada ciyaari doonaan kooxaha Barcelona Espanyol iyadoo uu jiro shaki ku aadan ka qaybgalkiisa kulankan kadib dhaawacii ka soo gaaray dhanka muruqa intii lagu guda jiray kulankii ay ku wada ciyaareen xulka qaranka Argentina iyo waliba Venezuela. wargeyska Marca ee ka soo baxa dalka Spain ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Lionel Messi uu ciyaari karo kulanka Sabtida soo aadan ay isaga hor imaan doonaan kooxda Espanyol horyaalka La Liga. xidigan reer Argentina ayaa dib ugu soo laabtay kooxdiisa Barcelona Sabtidii shalay kadib markii loo ogolaaday in uu isaga dhaqaaqo xirada tababarka ee xulka qaranka Argentina sabab la xiriira dhaawac ka soo gaaray kulankii Venezuela. Messi ayaa la dhibaatoonaya xoogaa xanuun ah tan iyo kulankii El Clasico ee horyaalka La Liga, laakiin waxa uu mas'uuliyad iska saaray inuu cadaadiyo naftiisa isagoo aanan helin wax nasiina ah ee ku filan taasi oo kaliftay in dhibaato cusub uu kala kulmo intii uu ku guda jiray tababarka xulka qaranka Argentina maalmo ka hor. wadadaawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijkeena muuqaalka maanta ee Goal TV iyadoo isla soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena balse markaan hogaamiyaha ruuxiga ee kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa xagaagan ay dhici kartaa inuu noqdo macallinkii ugu horeeyay ee kooxda Reds u soo gacan geliya tartanka Premier League tan iyo markii uu magacaas baxay 1992. maxaad ka taqaanaa hogaamiye Klopp falsafad noocee qaabku yahay toobare ahaan waxaa warbixintan soo socota ka diyaariyay kuna eegaya wariyana Shaafici Maxamuud Nuur Shafinho.
kani waa shakhsiga aad u taqaano Jurgen Klopp, macalinka haatan ee kooxda Liverpool. waa macalin xamaasad badan, waxa uu saaxiib la yahay qof kasta, xitaa kuwa cadowgiisa ah, waxaana uu ku caanbaxay kaftan iyo hadallo la yaab badan, isaga oo garoomada kubadda cagta ku soo bandhiga waxyaabo ka yeelay inaad aaminto in uu weli kubadda cagta ciyaari karo. waxaana uu dunida kubadda cagta qabsaday waqti aad u yar, iskuna baray inta aan horay u garanaynin. kadib soo ifbixi kubadda cagta ay ku soo biireen Jose Mourinho iyo Pep Guardiola, isagu waxa uu noqday macalin kale oo kubadda cagta ay rumaysay awoodiisa. in ka yar 10 sano ayuu kubadda cagta saameyn ku yeeshay Klopp. lama garanaynin waxa uu yahay xidigii hore ee qaranka Jarmalka, balse cunshaaqda kubadda cagta oo idil ayaa ku baraarugay maqlidda magaciisa sanadkiisii labaad ee uu maamulayay kooxda reer Jarmal ee Borussia Dortmund, isagoo 2 xilli ciyaareed koobka Bundesliga ka qaaday kooxda ugu xanashada badan koobkaasi ee Bayern Munich. waxa uu soo saaray xidiga daayar kuwaas oo u muuqday libaaxyo aan la joojin karin, waxaana uu ku qalabaysnaa saf ay horboodayeen Roberto Lewandowski, Marco Reus iyo Mario Götze, sidoo kale Ilkay Gundogan. sanadii 2013 tartanka UEFA Champions League ayay ka samaysay wacdaro weyn, waxaana bilowgii ay gashay gruubka dhimashada iyadoo la saadaalinayay inay isaga hari kartay. tartanka sanadkaasi waxa ay gruubka la gashay Manchester City, Real Madrid iyo kooxda reer Holland ee Ajax, balse waxa uu isticmaalay Klopp qidada uu kaga yaabsaday dhammaan kooxahaasi. waxa uu kaga soo baxay gruubkaasi kaalinta koowaad, waxaana uu sii waday guulaha ilaa uu bardhamadka tartankaasi kula ballamo kooxda Bayern Munich cariga Ingiriiska, qaas ahaan garoonka Wembley. khasaare ay kala kulmeen Bayern Munich, inkastoo markaasi la aaminay awoodda macalinka da'da yar ee ka soo jeeda Jarmalka. kooxdiisa waxa uu ka dhigaa mid ka awood badan kana adag kooxaha kale dhanka tababarka iyo xawaaraha sare. Guardiola oo mar ka hadlayay Klopp waxa uu yiri, ma jirto koox uusan isagu tababaro ahayn oo sidan u weerar badan una dhiiran. falsafada Klopp waa mid geesinimo leh, waxa uu horey geeyaa kuwa badan oo weerarka ah, waxa uu ka yeelaa xidigihiisa kuwa orday inta badan, weliba xawaare sare kana badan kan lagu doonayo in boosaska lagu ilaashado. ku raaxayso kubadda uu kooxdiisa ciyaarsiinayo Klopp, ku raaxayso dhiirigelinta maadaama kubadda cagta ay kulan tahay, balse waa mid ka mid ah macallimiinta ugu nasiibka xun caalamka sanadihii ugu dambeeyay. 2016 waxa uu Liverpool la gaaray bardhamadka tartanka League Cup oo ay ku lumiyeen gacmaha kooxda Manchester City. isla sanadkaasi waxa uu la teegsaday Reds finalkii Europa League, kuwaas uu khasaaray. sidoo kale 2 jeer ayuu isgeeyay finalka tartanka Champions League isagoo kala hogaaminaya 2 koox, waana 2013 uu hogaaminaya Borussia Dortmund iyo 2018 uu watay naadiga Liverpool. labaduba waxa ay tartanka ku lumiyeen gacmaha Bayern Munich iyo weliba kooxda Los Blancos. Klopp waxa uu sanadkan ku taamayaa in Liverpool uu kula guuleysto horyaalka Premier League markii ugu horeysay iyo hanashada koobka horyaalka England muddo 29 sano ah. nasiib wacan ayaan leenahay Liverpool iyo macalinkooda. aniga ahaan Klopp waxaan ka aaminsanahay macalin cajiib ah oo awooday inuu soo saaro da'yar dhiiran oo kubadda cagta maamuli karta sanadaha soo aadan. magacaygu waa Shafinho, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. waa tahay, waan filayaa inaad wax badan ka ogaateen xaaladda tababar ee Jurgen Klopp iyo sida uu u maamulo ciyaartooy koox si uu u soo saarto laacibiin magac iyo maamuusba ku leh saaxada kubadda cagta caalamka. balse markaan sheeko kale oo la yaab leh ayaynu jecelnahay daawadayaasha inaan la wadaagno. maxaad ka taqaanaa ciyaartooyda tumata muusig ama piyaanada? mase ogtahay in ciyaaryahanadaas ay qayb ka yihiin Sergio Ramos iyo hogaamiyihii tufaaxii qurmay lagu naaneysay ee Super Mario Balotelli? raawi Salaad Muuse ayaa qalinka u qaadatay sheekadan, iyada ayaana noo soo koobi doonta. kubadda cagta waa halka ugu badan ay dadka ku madadaaloodaan, waxaase dhanka kale la qarin karin doorka ay muusiga ka ciyaarto waxyaabaha lagu maaweelado.
haddaba waxaa warbixin idinkugu soo koobaynaa xidigaha dheela kubadda cagta qaarkood ee isku dayi kara in ay dadka dhagahooda gaarsiiyaan dhawaqa muusiga. xidigahan qaar ee ku caanbaxay ciyaarista kubadda cagta ayaa qaarkood waxa ay soo bixin karaan hirarka muusiga in ay marbadhan ka soo saaraan. xidigahan qaar ee ku caanbaxay ciyaarista kubadda cagta ayaa waxa ay soo saari karaan hirar muusig oo dadka dhagahooda maaweelin kara. Jose Maria Pinto haddii uu galoofiska ama gacmagashiga uu ku difaaci jiray kooxdiisa Barcelona, haatan waa mid ka mid ah laacibiinta garaaca muusiga waliba ka gaaray heer ilaa iyo loo xusho mid ka mid ah aflaanta Hollywoodka. waxa uuna ninka jooga dheer ka soo xula hirarka ugu macaan ee dhawaqa heesaha kuwooda loogu xiiseeyo. Sergio Ramos mararka qaar waxaa sii kordhiya dhanka heesaha ama muusig loo garaacay sil jacayl qof loo qabo darteed. waxa uuna Sergio Ramos bandhigiisa ugu horeeyay oo heer caalami ah mar uu ugu talagalay xaaskiisa inuu u sameeyo kadis ku aadan ka farxinta dhalashadeeda. haddii aan awoodo in aan daafaco kooxdeeda, waan awoodaa in aan muusig macaan oo aan ku garaacay gacantayda gaarsiiyo dhagaha xaaskayga, ayuu taagan yahay ciyaaryahanka lagu magacaabo Sergio Ramos. Petr Cech waa hubaal inuu ka mid yahay rugcadayaasha loogu qiimeeyo dheelida banooniga, isaga oo sumcad iyo muuq ku dhex leh kooxda Arsenal iyo sidoo kale kooxda Chelsea, ayuu haddana yahay mid kale oo door muhiim ka muujiyay garaacista muusiga ama biyaanada. Wojciech Szczesny isaga oo mar muujinayay isgarab istaaga lamaanaha ayuu ninka reer Poland iyo xaaskiisa waxay isla diyaariyeen hees uu qofba kaalinkiisa uu ka qaatay. waxa uuna Szczesny muujiyay in uu xiisaha galgacal ay ka keentay luuq sugaaneed oo uu ka cabirayay xiisaha uu u qaaday gacalisadiisa tii oo ay jirto inuu qayb ka yahay laacibiinta farahooda ay ka soo baxaan muusiga dhawaqooda kala duwan. Thomas Rosicky waxa uu lahaa gambis ama ku xaragoosho kubadda aan cabsi badan laga qabin in lugihiisa laga qaado. sidaas si la mid ah ayuu u noqday mid aan laga jeedsan karin habka uu u matalo doorka uu ku leeyahay koox muusig uu ka mid yahay Thomas. Sandro waa qad dhexe oo hibo aan qarsoomen ku dhexleh garoomada kubadda cagta, waxa uuna ku jiraa dhowr xidig oo ka soo mugbaxay dhanka iyo muusiga. Mario Balotelli ninka sheekooyinka iyo xiisaha badan dhaliya ka sameeya garoomada ayaa ah laacib gacanta ah. haddii dadka ay yaqaanaan qof xanaaq badan aan dulqaadkiisa badnayn, cagsigeeda ayuu awoodaa in uu soo jirto qulubta dadka isaga oo soo saari karo dhawaq abuuri kara maaweelo. waa qayb ka mid ah xidigaha muusiga garaaco aan idiin soo koobnay. وهاجان intaas kaga gudubna sheekadaas xiisaha lahayd ee la xiriirtay biyaanada iyo ciyaaryahanada gacantooda ku tunto. guud ahaan intaas ayaynu jecelnahay inaynu ku soo gabagabayno barnaamijkeena muuqaalka maanta ee Gool TV. anigoo Maxamed Cabdullaahi Axmed Digray ayaana barnaamijkeedii aan baqaadayay. asxaabtayga la qayb gashay Karaama oo qaybta farsamada inoo joogay, saaxiibada page-ka iyo si la mid ah Goobjoog TV naga daawanaysay, asxaabta comment iyo kuwa share garay. dhammaan waxaan idin leenahay waad ku mahadsantiin. nabadgelyo.